الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ciidamada difaaca Puntland ee howlgalka kooxaha khawaarijta ayaa 24 saac ee ugu dambeysay sameeyay howlgallo xiriir ah kuwaasi oo cagta lagu mariyay laguna burburiyay in ka badan 8 talis iyo saldhigyo ay kooxda argagixisada ee Daesh ku lahaayeen burleyda caalamiskaada ee gobolka Bari. deegaanada tooga lagu hele dhaban cado ilaa Cameyra hoobato taag iyo buurta Baalgore ayay dhammaantood ciidamada difaaca Puntland kala wareegeen kooxdan halkaas oo fariisina muhiim u ahayd kooxda dhiig miiratada ah ee Daesh ahaydna saldhigyo ay ka soo abaabuli jireen weeraradooda ku dhisan fulaynimada gaadmada iyo dhibaataynta bulshada Soomaaliyeed. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nimanka halka ku jira oo argagixisada ah oo dhiigga islaamka xalaaleystay wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam layna adraktum la aqtulan mithla aad mutamud haddii aan waxa la yiraahdo haleelo oo la kulmo waxaan ula dirirayaa si reer tamud iyo reer caad waxa la yiraahdo loo halaagay oo kaliya aan hogaan u halaagina way halaagsameen sidaas la midana waxa la yiraahdo waxa weeye inaanu anaga oo xadiiska rasuulka fulinayna ayaanu waxa weeye dagaal kula jirnaa. waxa kale oo jiray xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxa la yidubaan liman qatalahum qatalu waxay laanta janno u sugnaatay qofkii dila iyo kii iyagu ay dilaan. waxa la yiraahdo Daesh waxay ahayd khawaarij tabar daran oo dulmi isu soo baahaysatay argagixisada ajnabiga kuna soo gashay almiskeed waxa la yiraahdo si Malaysia waa soo afjarnay haddeertaana waxaanu daba joognaa baaqiyaadkoodii. ciidamadan ayaana gudaha iyo bartamahaba u galay 100 kilomitir burleyda caalamiskaad taasi oo suuro gelisay jabka xooggan ee soo gaaray kooxda khawaarijta ee Daesh iyagoona ay firxadkooda ku daba joogaan ciidamada difaaca Puntland ee howlgalka Hillaac. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sheegay inay guulo la taaban kara ka gaareen ciidamada howlgallo xiriir ah oo socday saacado kala duwan iyagoona wacad ku maray inay soo afjari doonaan maalmo kooban haraadiga kooxdaani. ciidanku waxay ka soo bilaabeen halganka markii laga reebo dharjaale arintii ka dhacday oo isku dayga ahayd oo ay khasaaraha weyn kala tageen waxay ka soo bilaabeen xamure iyo meeshan aan joognaa waxay isu jiraan masaafo taqriiban 780 kilomitir ah. waxaan ka soo safaynay intaas cadowgii Daeshka ah oo ku jiray waxaan ka soo qabsanay saldhigyo aad u waaweyn oo deegaanadoodii ahaa ma aha niman ku dhiirada inay qof yimaadaan oo la dagaalamaan waa niman u tababaran oo ku dhiirada inay qof gaadaan iyo dhagar ay dhigaan. waxaan ku fahanay dhagarta ay dhigayeen waxa isku dayo badan oo mid kasta ay ka qaadeen guul darro. waxaan ugu bashaareynaa bulshadayada quruxda badan ee reer Puntland oo haween iyo gabdho iyo wiilal iyo dhalinyaro iyo magaalooyinba na garab taagan inaan ka gaareyno guul weyn halgankii dawatirka Daesh. taliyaha ciidamada booliiska Puntland sareeye guuta Muumin Cabdi Shire oo ku sugnaa furimaha dagaalka ayaa dhankiisa u mahadceliyay ciidamada geesiyada ah ee cagta mariyay fariisimada muhiimka ah ee kooxda Daesh firxadkoodana ku daba jooga. waxaanu markhaati ka nahay guusha weyn ay ciidamadu gaareen dhowr bari oo ay howlgal wadeen ay ka soo qaadeen deegaanka Timirshe. aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciidanka shaqadan qabtay oo sida degan oo aqoonta iyo halkasnimada ay ku jirto shaqadooda u qabtay. waxaan rabnaa inaan idinka mahadcelinno idinku ammaano idinkuna abaalhayno insha Allah waxa qabateen oo dalkiina dadkiina u qabanaysaan. waxaan leenahay howlka wadaale weli waa ogadii waxayna geeyeen ciidanku saldhigyo ay qabsadeen maanta iyo daraad oo tiradoodu ay tahay 8 inta waaweyn iyo meelo awboosya oo ay ka carareen oo ka firxadeen argagixisada ciidanka markay aragtay. Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe.